موقتها يا الدنيا ده حد بعد التاجو أدوكنا سنين بشعيل قوة أبو رمي قضب هذا قبنا هداير على السوق يعني هي ما أنتم حكم ده محمد عبد الله فرماجو هي حس على غيره وغلاف صوك اللي حكى حس على غيره وما عارف تقوم مقالة مشكلة مغلي إذا عليها أكلية ورباهين تاجوه الرئيسي لكن فرماجو قرمو قاضي إن حس على غيره يكينيو أي سوا ترياشي إن شاء الله مقعاوي إذا كان دمان توت همبليوين هواي راداري أي هرين أو تاجر يلا يكوي شبرها برشدة لكن ما حكوا داعي أو تاجر دي فهد ياسين حاجة داهر قفنا ومصو همبليين لكن ذلك غالتي وحليهين همبليون بهنا فهد ياسين قرش كقدر يقرح الشباب هدي واسمه يستوني يعني ملكي لها الدولة ده انت صعب فيلم شكرا كلام هذه هي وحويه نمك الصفاء ما أهل السنة ما قاعد دونتان ويجري هالشيء حس على غيره ولا قلين وبري أمان كما قال هذا لو إلا وريقين سجد عنده ويقبتين مانت ما عد كي قاعد ما عد كي قال لما قليني marka iska daa sheekadaasi waa la yaqaanaaba waa nimankii labada naxdin weeye waxa dhibaya gantaalaha ka soo baxaya afdaahir cala soobe alay xaal waxa weeye waxa isqabsaday hambalyada iyo dabaaldega loo jeedinayo ama lagu taageerayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa meel walba isqabsatay waa islaamkii waa Axmed Daacad soo dhawaada laakiin ninka la yiraahdo Cabdirashiid Xidig hadii uu rumaysan yahay inuu roobka dii doono Kismaayo dilad buu hore u soo qaadan lahaa taa waxa loola jeedaa hadii uu rumaysan yahay inuu yahay ama uu noqonayo madaxweynaha Jubbaland xildhibaannimada golaha shacabka Soomaaliya ayuu xagga iska dhigi lahaa iska ma dhigin laakiin dad dib dhabalinka soo baxay Cabdilaahi Seeraan oo isagana بحشي حكم جعايله هذا أنتم مدح مري لسه تاجن مدحوينها شعب كدورتين يجيب الله وعنك كينيا ويفرحسن تاي وحيانا يعني قبل جبوين كي كذاك السعودي إنسان يقبر لقاعد كذا يكوه دي هيك لب حي نبض ينول الله في ذاتك يبي قانا نبض ينحلين يتوبينا أفكي واجوق ذي قبي وهي عرقتي سيدي فليس يعني ساحين لكن nimankii shalay muxubada ay qaaday inkastoo ay ku qasaareen oo lacag badan oo $2 milyan ay ka qaateen kooxda nabad naxdin haddana macallin Maxamuud Sheekh Shaakir iyo xirtiisii ay xaalada jiqota afka labadii ay maanta furteen waxay sheegeen oo yiraahdeen heshiiskii aynu dhuusamareeb kula galay qayre waa guur iyo ka noqosho ama damac iyo ka noqosho waxay leeyihiin inuu qiyaamo ayuu rabay oo ciidamo Itoobiyana ayuu soo wadaa si doorashada loo afduubo oo qof iyaga ay wataan meeshan uga soo baxdo oo waxay leeyihiin waxa la doonayaa in lafta gareen tuu laga sameeyo dhuusamareeb marka waa taay Ingiriisood leeyihiin oo gabar yar hadii odan lagu qasbo waxa loo yaqaanaa Ingiriisood marka joogto waxa lagu leeyahay gabadhaas waa lafta gareen odaga gabadha qaba ma taqaan magaciisa maxaa la odaga gabadha loo guuriyo lafta gareen macnaha gabar aan rabina lagu qasbay marka joogto Ingiriisood iyo gaalkacyo iyo hobyana waxa lagu leeyahay shalay iyo maanta ninka gabar uu jecel yahay laga guursaday waxa loo yaqaanaa Cabdirashiid Xidig al xidigiya waxa lagu leeyahay al xidig gabadhu jeclaa waa laga aroosay nin kale ka raacday marka waxa weeye dhuusamareeb taanya xaalku waa jiq markii ugu horeysay maanta intay soo fariisteen Sheekh Shaakir iyo xigtiisii oo la sii laba neef oo ariya way soo qasheen ugu yaraan ayay shidada qabteen findicil odaga findicilnay wajigiisa kama akhrineyn wax farxada inkastoo isaga miskiin iska yahay laga yaab macallin Maxamuud inuu wixii dhamaan meel ku shubtay haddana waxay
yiraahdeen shirka dibashisiinta galmudug baa qabanaysa ee kii hore waxba kama jiraan iyo guddiga uu magacaabo farmaajo oo sababtuna maxay tahay odayaasha loo yeeray ee dhuusamareeb loogu yeeray ku leeyihiin waaba shabaab al-shabaabiya waxay leeyihiin in lagu dhex milo galmudug ayaa loogu talagalay talabaadna waxaa weeye caasimadii galmudug ee dhuusamareeb ammaankeediiba waxaa dib ula wareegay ciidankii sufa marka hore soo yaab ma ahaynba in maamul dhan oo dhisnaa oo dadkusi ay joogaan la yidhaahdo idinku waxba ma tihiin booliiskiina nabad sugidiina daraawiishtiina ciidamada qoosho dagaali wada ee militariga ammaanka la wareegaya ayay hay dhahaan arigu walaalo gaalow tanahay kaa hadlayday arigu walaalo gaalow tan kalanahay kaa hadlayday ku soo rid ariyaa walaalo gaal labada gacmood iyo buuhi ariyaa hay kaa hadlayday tan gablabe iigu shub wadadho ha shalayta waa inta sheegay shalay sheegay baan u riyaaqo waxaan idhi gabadhii foosha ahayd ilaahay ma kala keenay sida loo lahaa xaalkeeda waa sida loo lahaa hogaamiye kooxeed iyo al-shabaab ay dhashay hogaamiye kooxeed iyo al-shabaab ay dhashay ninkii reesha isaaqa marqaansanaya meydkii loo dhiiban meydkiisa u sideen waa dhacdaa allah yarraxma waa dhacdaa الله يرحمه بق واقف كذا سيدهن حدو سيجو أي بميتكي هو ميت أنت يا حيدر واركي هو لسه ميت هاك أنا بحصل حدو قوم بميتكي حدو بوصيف في أو سيجو أي دول دي فرماجة حدو بيقوله لكن وعوي هذه اللغة صو أتكالي جبلان أو كسمايو أو تيفيد كداوة شعر بعتير haddii rabitaankiisa Ethiopia u shaqayn waayay dadka reer Muqdisho dadka reer Hirshabeelle iyo reer Koonfur Galbeed iyo reer Galmudug maxay ka baranayaan inaan waxa la rabay lagu soo dulay karin wala Ethiopia wala Buju wala Kenya wala Sankadudi inaan lagu soo dulay karin Somaliland annagu waxa dhibna haystay iyo qayl daanta naga baxaysa iyo dabaaldega oo lef sanad guuleeda waxa ay dhan boorka ma hayaan waxay kaga dhigan tahay musabix lacagta xad ku aad xago keenay halkaas ay kaga dhigan tahay musabixi lacagta uu ku soo xajiyay halku ka keenay taa weeye su'aasha demasho ka keenay moogin muuse shaani doona shaani u gatay keenay hadduu rabo xaafado soo handaraabay inagu dhibka inteen la eegaana haysata xaskaan iminka wuxuu noqday xaafadii buulxuubay oo qof walba iska tagaysa oo suuqi bakaaro kale uga soo adeeganaysa ya oo laba go cad iska xirnaysa ilaahay baa iska leh aqbalaada qofkii laga aqbala iyo qofkan laga aqbalin muusada kuwaas oo kamid yahay how many marriages are there imsa dilaayala ayaa halkaa noo jooga maxaa anaga muuse kaliya nagu mashquuliyey kuwa kala ognaay dad nool balaqay oo meesha jooga marka adeer reer Hargeysa idinku meedkiina aasta ama sita xadkiinu hal aqbalo ama ilaahay iska diido ama raacfaan ka qaata yeelkadiin waxa wax naagaalay anagu teenan haysata ya nigiishina culeeyay ayaa xil raadinaya ma ogtahay adduunyada axad baa la taago adiguna isniin buu jacayl kugu abuurmay arbaca sidaadii أنا اللي يقول بيري وحاديقو أبورتان لا كي سواي أما ندى إلهي نقوكما إلا ويني نقوكما إلا ويني نقوكما إلا ويني أمين الله يو وأما ندى مؤبتهي سيديو أنكديو إلا عبداً oo aroor yadiiday ama oo tawabari iimaanka deeqo waadiiftinte amaanadan ilaahay noqokumaan ilaawine ha noqokumaan ilaawine amiin allahayow wa amaanadaade qiyaastii waa 1973
وجور أرور أو إذا كان لما تصدق معلومات حاج حسين وفارح دبت الله أقولنا حريستي وحاول حلوين يا مجالة ده هرجيسة وحاول كل ما يشيل سقطتي جبل ويقيني وإن إذا كنت تصدق وقبل جري وكنتي قبل داسي واحد يستعرور لحة قبل كم قبل دهاس قبل داسي إذا شيء ما هذا شيء قبل كم ده وحلوين هذا أما قعدوا اللي ده أمان الصباح داسي وحا لمر ما يسهوين وقطتكم إبليس مجالة هرجيسة قبل دوا ريد دامي أو هالكاس أي كسر جدا مركا أيو حاجة سوف أخدمه إذا ما لك تسن حاجة هذا قلنا قاقي مركز سلامي مركز كل حالة إيجا ورن مركز الوافي عنها هاي مركز كل كنت الجواب دون ما حاس كويس تنبو كل مركز كنت الجواب إيجا دون إيسا لكن إيدا الله يقول هيستا وده تسبني بيام قهردا وحكلا ما حيو مركز أيو حاجة سوف فرح دبت وحولي ما أنت لك عروض إيدا أنا بحنية أنا بحنية عروض أنا بحنية عيدو لكن جودا أمان ير ملاها سجال شركة كورن هداي المهي لنا ولا تو أنا وحفظي جوتو وحبرشة جي مركزتي سو أبهد متي all right من الله حرمين ووها قبل أيو حسين ما كحستي حاجة حسين فرح دبت oo aqalkii degan yihiin aqalkooda kala fogeyn aqalkooda ayuu geeyay gabadhu qaba ayuu u sheegay oo ku yiri gabadhaani waxa weeye in hebel baa dhalay ninkii dhintay askariga ahaa hebel baa dhashay inay ilmaha kamid noqotaan doonaya inay kortaan doonaya inay waxbarashada iskuul buu geeyay marka xaaji xuseen faarax dubad markuu xaafadda yimaado muu cashay jirin ilaa ma gabadha yar ee amaan ay u timaado ayadoo jeclaa habeenkii inuu la casheeyo gabadhu way kacday oo way weynaatay oo waxay noqotay dhowr iyo 10 sano jir markay gaartay 14 sanadood ay gabadha galgacaltooydii waalidnimo mid ka duwan oo jacayl ah ay la soo shirtagtay xaaji xuseen farax dubna madaafiicda goobaha ayuu kala ilaalinayay oo wuxuu ku lahaa war dadkan saaqoon afka isu gelinina gabadhii uu qabay marwadii reerka iyo wuxuu kala ilaalinayay tan yar oo markaa damac ku jiro 15 markay gaartay gabadha sheegtay وكنت waxaan doonayaa inaad i goosato isagan wuxuu ku yiri no aabahaabaan am yo allah faala soo waxaan doonayaa inaan waxbarasho dibadda ku diro gabadhu arintaas aad bay kaga murugootay markasta waxay u muujinaysay jacayl waxay u muujinaysay inuu guur ka rabto laakiin isagu iska dabaalinay wuxuu kaloo aad ugu dadaalayay in aanan islaantiisa dareemin jacaylka ay amaan u qabto xaajo soo farax dubad si qaraxa soo socda ee looga ilaaliyo deegaanka oo xaafadu rabash u gelin ayuu gabadhii u diray Masar buugii waxbarasho u soo dhameeyay halka bay joogtay ayaan dambo markay qalin jibisay jaamacadda dhameysay ayuu xaaji xuseen faarax dubad rabbihana xariis janna ha ka waraabiyay diyaarad qaatay oo wuxuu tagay Masar qaahira markuu tagay ayuu kala baxday bedelay يا مش شل معها نينك شل معها قبل شل معها تضع صب على برتي حالك وعمرين هاي ومقال مش حاجي قالوا هيا إمن كي باشو بصلاعتي إمن كذا سي بصلاعته باشي طمعا وضيق علي كاسو كويري هي أمان أرنت أدواجي شيء توجد كم كذا يسوق بسي حدانو حدا قمينو وانت كدينا سوما صح معها كاسيتي لكن هذا جعل كلام سمعتنه وأصرخ ذي فابن عادل هي الكي هالكاس مركي مريس أي صباح ذي والحاجة كلها بتقول كيسا يروحوا لي هاي قالنكا ورقد وساع صدور صاري مركاسو بلابي إنه قروح markaas wuxuu leeyahay ma ogtahay adduunyada axad baa la taago adiguna isniin buu jacayl kugu abuurmee arbaca sidaadii in la igu beeray waxaad igu abuurtaan la adkeysan waayay amaanada ilaahay noqokumaan ilaawin ma ogtahay ayaantii ilmadu ka daaysay indhahaaga qoysaan inay yahay xasuusto uurkan ka ooyo waan ka ashahaatay waxaad igu abuurtaan la adkeysan waayay amaanada ilaahay
noqo kumaan ilaawine ma ogtahay sidii roobankoodii hilaac badan oo aloolyadii daaya ma ogta waa bari waad ii iftiintoo iimaanka deeqde waxaad igu abuurtaan la adkaysan waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine intaana haynoo joogto qodob jacayl oo aan ku soo daraya maanta qubalahayga sheekadan haddii aad xiisaysay comment igu soo qor waxaan soo duubayaa video gaar aniga ku saaraya heesta laado ma ogtahay ayaantii ilmadu kaa da'ayse indhahaaga qoysan ina yahay xasuusto urkaan ka ooyo wanka shahatee waxaad igu abuurtaan la adkaysa waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine amiin allahayow waa ammaanadaade amiin allahayow waa ammaanadaade jacaylkii ammaan iyo xaaji soo fara dumadku 9 3 qaahira